Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawayaasha qiimaha badan waa mar kale muuqaal cusub. Ku soo dhowaada channelkeena Cilmi Daaq. Insha Allah maanta muuqaalkeena waxaan diiradda ku saari doonaa 3 arrimood oo ku saabsan dalka Falastiin. Kow waxaan ka hadli doonaa taariikhda dalka Falastiin. 2 meesha uu ka yimid magaca Falastiin. 3 sheegashada Israa'iil ay sheeganayso inay leedahay dhulka Falastiin iyo siday ku soo galeen ama ay ku soo degeen dhulkaasi. Maanta mawduuceena diiradda ayaan ku saaraynaa arrimahan insha Allah ka bogasho wacan. Falastiin waa waddan ku yaala bariga dhexe ee qaaradda Aasiya. Falastiin waxay xuduud la leedahay waddamada Masar, Urdun, Suuriya, Lubnaan iyo Israa'iil. Markii hore dhulka Falastiin waxaa deganaan jiray Carab Falastiin ah, waxaana lagu qiyaasaa in Falastiiniyiintu ay gaarayeen xilligaas in ka badan 8 malyan oo qof. Qaxootiga Falastiinta waxaa kale oo ay degan yihiin waddamada Urdun 3 milyan ayaa degan, Lubnaan 400,000 iyo waddamada kale ee Carabta ahna in ka badan 800,000 oo Falastiin ah ayaa degan. Qaarna waxay kala degan yihiin waddamada adduunka, Yurub, Ameerika iyo Aasiya. Falastiiniyiinta badankooda waxay ku jiraan kaamamka qaxootiga. Dadka reer Falastiin haddii ay hal meel wada degaan, yuhuudda waxay ku keeni kartaa warwar aad u badan. Falastiin waa dhulka nebiyada iyo rususha, waana qibladii Islaamka ee ugu horreysay. Falastiin waxaa ilaa hadda ka dhisan dhismayaal taariikh aad iyo aad u dheer leh oo caddeynaya taariikhda soo jireenka ah ee Falastiin ay leedahay. Falastiin waxay leedahay taariikh soo jiitamaysay xilliyo aad iyo aad u fog. Waa dhulkii ay ku noolaayeen shacabkii loo yaqaanay Kancaaniyiin. Magaca Falastiin ciddii bixisay waxay ahaayeen Giriiggii hore, markaas oo ay magaca Falastiin u bixiyeen dhulka xeebaha ah ee waddanka Falastiin. Xilliyada qaar magaca Falastiin waxaa loogu yeeri jiray dhulka Falastiin iyo waddanka Urdun oo wada socda. Qabiiladii Kancaaniyiinta ayaa dhowr u kala qaybsamay. Kadib qabiil ka mid ah Kancaaniyiinta ayaa markii ugu horreysay degay magaalada Qudus ee masjidka barakaysan ee Al-Aqsa ku yaal. Waxaana dhulka Falastiin xilligaa loo yaqaanay dhulkii Kancaaniyiinta oo qabiilka ayaa degi jiray, magacoodana sidaa ugu baxay. Waxaanay ahayd 10 sano ka hor intaan imaan reer bani Israa'iil oo dhulkan soo degin. Marka ugu horeyn taariikhda lahayo ee laysku waafaqsan yahay Muslim iyo gaalba waa in dhulka Falastiin markii ugu horreysay ay deganaan jireen oo loogu yimid dad Carab ah oo aanay Yuhuud iyo dadka iminka sheegta ab iyo isir midna u lahayn. Halka uu ka yimid magaca Falastiin. Mar dambe haddana waxaa dhulka Falastiin yimid oo soo degay dad ka soo qaxay jasiirad ku taala badda Mediterranean-ka oo boqortooyadii Masaaridu oo markaa dhulka Falastiin ka talinaysay uu dagaal dhex maray. Ugu dambeyntiina waxay degeen waqooyiga Falastiin. Qabiilkaas waxaa magacooda la oran jiray Balasti. Kadib waxay isdhex galeen oo kala guursadeen qabiilkii Kancaaniyiinta ee hore u deganaa dhulka Falastiin. Markii dambena waxaa loo bixiyey Falastiin oo labada magac ee Balasti iyo Kancaaniyiin ayaa midba in laga soo qaatay. Kadib waxay noqotay Falastiin. Halkaas ayuuna ka yimid magaca iminka loogu yeero dalka Falastiin ee Falastiin. Sheegashada reer bani Israa'iil ee Falastiin iyo siday ku soo degeen. Waxaa sanado badan kadib magaalo ku taala dhulka Ciraaq oo la oran jiray Yuur oo hadda loo yaqaano Tal al-Muqayyar oo ah meesha uu ku dhashay Nebi Ibraahim calayhi salaam. Qabiilkiisuna wuxuu ahaa qabiil la oran jiray Kirdaaniyiin oo caabudi jiray dayaxa, xidigaha iyo meerayaasha. Markii uu sanamadii iyo wixii ay caabudi jireen ka burburiyey, waa kuwii dabka ku tuuray, kadibna Ilaahay ka soo badbaadiyey. Kadib dhibaatadii qabiilkiisu u geysteen markuu Ilaahay ka soo badbaadiyey ayaa isagii Nebi Luut uu adeer u ahaa iyo Saara oo ahayd xaaskiisii
ayaa u soo hijrooday dhulka falastiin. ilaahey ayaana qur-aankiisa inoogu sheegay. qaala allahu tacaala wanajaynaahu waluudan ila alardi alatii baaraknaa fiiha lilcaalamiin. oo ilaahay qur-aanku ku leeyahay waanu soo badbaadinay nebi ibraahim iyo nebi luud oo wada socda oo waxaanu geynay dhulkii loo barakeeyey caalamiinta. kadib dhulka falastiin bay degeen iyo magaalada qudus. nebi luud calayhi salaam isaga qoomkii luud ayaa loo diray oo deganaa agagaarka webiga urdun. nebi ibraahim calayhi salaam isaguna wuxuu toos u degay magaalada qudus iyo agaarkeeda oo halkaas ayuu dacwada ka fidin jiray. kadib waxaa u dhashay wiilkiisa ismaaciil oo xaaskiisii haajira ayaa u dhashay. sidoo kale waxaa isla halkaa ugu dhashay wiilkiisa isxaaq oo xaaskiisii saara ayaa u dhashay. labaduba dhulka falastiin ayay ku dhasheen, waa isxaaq iyo ismaaciil. kadib waa kii uu u qaaday haajira iyo ismaaciil magaalada maka. kadib nebi isxaaq calayhi salaam ayaa ku soo haray dhulka falastiin oo ku koray. wiilkiisa nebi yacquubna calayhi salaam halkaas ayuu ku dhalay. markii nebi yacquub calayhi salaam wuxuu ku dhashay oo uu ubad ku dhalay dhulka falastiin oo wuxuu ku dhalay 12 caruura oo uu ka mid yahay nebi yuusuf calayhi salaam. nebi yuusuf waa kii walaaladii ceelka ku riday ee addoonka laga dhigtay, haddana jeelka lagu xiray. ugu dambeyntiina waa kii noqday wasiirka maaliyadda ee boqortooyadii weyneed ee dhulka masar. xilliga ayay abaar xun ka dhacday dhulka falastiin oo ay joogeen nebi yuusuf, walaalihiis ceelka ku riday iyo aabihii nebi yacquub calayhi salaam. markii abaartaas dhacday ayuu nebi yacquub calayhi salaam masar u soo diraya inamadiisa oo ku odhanaya, waxaa la sheegay masar in nin boqor ah oo wanaagsan haystee, orda waxay nooga soo qaada. kadib nebi yuusuf iyo walaaladii way is arkeen. marka dhammaantood nebi yacquub calayhi salaam carruurtiisii kuwii awowga u ahaa iyo wixii ka farcamay oo dhan masar bay u soo qaxeen. marka reer banu israa'iil weligood hal jiil kuma dhammaysan dhulka falastiin. marka siday u sheeganaysaa yuhuuddu inay iyagu leeyihiin dhulka falastiin? nebi yacquub calayhi salaam wuu degay falastiin, laakiin wuu ka guuray masar buuna qabtay. marka nebi yacquub ciddii ka soo farcantay ayaa loo yaqaanaa reer banu israa'iil. nebi yacquub ayay ka soo farcameen dhammaantood. marka ma lahayn reer banu israa'iil dhulka falastiin ee kancaaniyiinta carabta ahayd ayaa lahayd ee mar uun bay deganaayeen, kadibna way ka qaxeen. marka sheegashada ay hadda sheeganayso yuhuuddu inay taariikh hore deganaan jireen dhulka falastiin waxba kama jiraan.